Somaliland waxaa la yaab leh Somaliland qofka u hooseeya ilaa ka u sareeya waxay leeyihiin lafdhabarteenu waa xoolaha nool iyo reer miyiga 1840 khamiisood ayaa golaha wasiiradu shirayay khamiis qura oo ajadaha golaha wasiirada Somaliland uu ahaa in reer miyiga iyo xoolaha nool la horumariyo iyo sidii loo horumarin lahaa may dhicin golayaasha wakiilada iyo baarlamaanada iyo wasiiradu inay mushaharkooda dhammaystiran bixiyaan weeye imika hayaa Somaliland waxa dhacay abaar ba'an baa dhacday dalkeennii abaar baa ku dhacday dalka oo dhan bay abaartu haysaa colaad baa ugu darsoontay la yaab leh Somaliland qofka u hooseeya ilaa ka u sareeya waxay leeyihiin lafdhabarteenu waa xoolaha nool iyo reer miyiga haddana miisaaniyad kasta $100 uguma jirto $100 reer miyiga iyo xoolo dhaqatada iyo xoolahooda $100 uguma jirto 1800 iyo 47 1840 khamiisood ayaa golaha wasiiradu shirayay khamiis qura oo ajadaha golaha wasiirada Somaliland uu ahaa in reer miyiga iyo xoolaha nool la horumariyo iyo sidii loo horumarin lahaa may dhicin ma maskaxdeenu ka dawaarsanahay markaynu leenahay waa lafdhabarteennii markaynu ognahay inay lafdhabarteennii yihiin markaynu ognahay mulkiilayaasha dalkan Somaliland la yiraahdaa inay yihiin reer miyiga iyo xoolahooda haddana meel $100 u saaran yahay iyo cid ka hadlaysaa ma jirto Somaliland abaar baa dhacday Somaliland abaar weyn baa dhacday abaartaasi dalkoo dhan bay saamaysay berigii hore markay halkan oo kale marayso ciyaal iskuulku nusaaxooday bixin jireen macallimiintu mushaharkooday bixin jireen golayaasha wakiilada iyo baarlamaanada iyo wasiiradu inay mushaharkooda dhammaystiran bixiyaan weeye imika waa in reer miyigii loo gurmadaa ninkii kiilo timir heli karaya iyo ninkii foosto biyo heli karaya iyo ninkii heli karaya wax uu ku caawiyo ummadda waa inuu la gaadhaa oo sida ugu dhaqsaha badan leh dadka loogu qabtaa abaarta waa in loogu qabtaa sidii ay biyo u heli lahaayeen Somaliland ay hurdada ka kaca fadhiga ka kaca war hayaay abaar baa dhacday colaad baa ku biirtay gundheer colaadta gunta dheer leh waxa soo aftaraya madaxweyne adigoo ku dhiirada Ibrahim Accord oo saxeexa oo dawladaha kale ee kula jiraana ina itiraafaan ayaa cid waliba halka inoogu imanaysa nabadeenu saasay ku sugnaanaysaa dagaalada yaryar ee ka dhacaya dawladaha kale wadaan waxa soo aftaraya itiraafka oo aynu helno 3 dal oo kale oo kaliya oo ila itiraaf madaxweyne ku dhiiro Ibrahim Accord ku dhiiro siijeed ku saxeex dalkani dal buu noqonayaa war hayaay abaarta iyo colaadda reer miyigeennii lafdhabarteennii